oo noqon doona xarunta wasaaradda gaashaandhigga oo laga hirgeliyay goobtii hore u ahayd xarunta wasaaraddaasi. munaasabadda madaxweynaha Somaliland uu xariga kaga jaray dhismaha cusub ee wasaaradda gaashaandhigga Somaliland ayaa sidoo kale waxaa goobjoog ka ahaa xubno ka mid ah golaha wasiirada maareeyaal iyo marti sharaf kale. koorintaanu madaxweyne Siinaaya xariga ka jaray xarunta cusub waxa uu salaan sharaf ka qaatay cutubyo ka tirsan ciidamada qaranka Somaliland. wasiirka gaashaandhigga Somaliland Axmed Xaaji Cali Cadami oo hadal ka jeediyay munaasabadii xariga lagaga jarayay dhismaha casriga ee wasaaradda gaashaandhigga Somaliland waxa uu sheegay muddo badan wasaaradda difaaca ee Somaliland ay ku jirtay dhismaha isugu jiray inuu dumo. waxaana uu sheegay dhismahani wax weyn ka bedeli doono hanaankii shaqay wasaaradda gaashaandhigga. jirto dabadeedna lacagtu iska dabayma jirtay si ka fudud oo ay ka naxeen daarka aanu ku jiray waan madaxweynaha tuutusi doono markaanu baxno oo soo dhac ku dhaweyn aniguna aanan leefi tuuras ku jirin wada shaqaaluhuna aanan ku jirin inta markay ka naxeen waa degdega kaniyo surcadda keenay si bani aadamnimo ah ragga qaar waxaan ka maqayaa inay daaroodii sadimiyaana yidhaahdaan idina sidaa halaydinka naxo. xasan abashir gudoomiyaha hay-adda African Educational Center ayaa isla dhismaha ku tilmaamay mid wasaaradda in badan ay sugaysay. madaxweynaha Somaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siinaaya oo xariga ka jaray dhismahaasi waxa uu sheegay in wasaarad aad iyo aad muhiim u ah iyagii ciidamada qaranka ee difaaca dalka inoo qaabilsan oo ahmiyadda ay inoo leedahay in ognahay xubinta ugu weyn ee u taagan astaanta qaranka iyo difaacaadda dalka iyo ummadda u taagan ee wasaaradda difaaca iyo ciidamada qaranka difaaca caam ahaan. madaxweynaha Somaliland waxa uu qolqol u soo booqday dhismaha wasaaradda gaashaandhigga ee Somaliland. dhismahan ayaa waxa uu noqonayaa mid ka mid ah xarumaha ugu quruxda badan leh uguna habaysan wasaaradaha dowladda Somaliland oo badankoodu u baahan dib u habeen iyo qalabayn lagu sameeyo. wasaaradda gaashaandhigga ee Jamhuuriyadda Somaliland ayaa muddo dhowr iyo 10 sano waxay ku jirtay dhismaha dulita. dhismahan ayaa waxaa noqonayaa dhismihii ugu horeeyay ee noocan ay loo dhiso wasaaradda gaashaandhigga ee Somaliland iyadoo mas-uuliyiinta wasaaradda gaashaandhiggu ku tilmaameen mid u soo kordhay oo guula. Xamse Cali Balbul, Home Cable TV.